السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa hoyga dhiirana English Learning Furnace qaybtiisa YouTube-ka. Haddaba luqadda Ingiriiska ku baro si fudud adoon la soconay barnaamijyada kala duwan aan daily u soo dhignay barteena YouTube-ka sida conversational practice, wada sheekaysi, kelmado iyo sheekooyin xiiso leh amba barnaamijyo kala duwan oo aan daily barteena u soo dhigo. haddaba subscribe noo sar haddaad nagu cusubtay, haddaad hore noogu saarneed qalbiga ogsooni Allah ku sharfo. وأنا عبدالسلام موسى أحمد عبدالسعديرني إن شاء الله maanta waxaynu qaadan doonaa short debate about abuse. waa dood cay ah isla markaana dhex mari doonta Jaamac iyo Jamiila. waa markii ugu horeysay, waa barashadoodii ugu horeeyay. sidaynu hore u sheegnay debate-kan wuxuu u dhaxayn doonaa Jaamac iyo Jamiila sideen ognahay marka la yahay classmate-ka inan iyo inan la isku soo kiciyo marka luqadda Ingiriiska la baranayo. practice-ka lagu wada hadli lahaa ayaa magaranaysa ay ku wada hadli doonaan, waana marka ugu horeysay ay isku soo kacaan. waa yahay sidoo kale haddaan tusaale ka soo qaato, Jaamac ayaa wuxuu odhan doonaa waa duni macaan ku dhamaaday inanteeda iyo Caaysa waa maxay. ha iga hor dhicin, waynu akhrin doonaa midna waynu macnayn doonaa. waa yahay Jaamac ayaa hadalkii bilaabi doonaa, waxaanu ku bilaabi doonaa dhigiisa Jamiila. wuxuu odhan doonaa Jaamac, today maanta I am very interested. today maanta I am anigu very interested, waxaan aad iyo aad u xiiso qabaa. today maanta I am very interested, waxaan aad iyo aad u xiiso qabaa. to insult you inaan ku caayo. to insult you inaan ku caayo. to insult you inaan ku caayo because maxaa yeelay I have heard saying, waxaan xan ku maqlay. I have heard saying, waxaan xan ku maqlay that you are dullness inaad tahay. that you are dullness student in the class, inaad tahay saaqidada galaaska. that you are dullness student in the class, inaad tahay saaqidada galaaska. yani dullness waa saaqid amba saaqidad. aan ku soo celiyo, today maanta I am very interested, waxaan aad iyo aad ugu xiiso qabaa. to insult you inaan ku caayo because maxaa yeelay I have heard saying, waxaan xan ku maqlay that you are dullness inaad tahay. that you are dullness student in the class, inaad tahay saaqidada galaaska. Jamiila ayaa hadalkeedii qaadan doonta, waxaanay odhan doontaa hadalladan soo socda. waa yahay way ku qosashay. in fact xaqiiqatan you are forcing me, waxaad igu qasbaysaa. you are forcing me, waxaad igu qasbaysaa to disclosure inaan kugu fadeexadeeyo. to disclosure inaan kugu fadeexadeeyo in front of this people, ardaydan hortooda. in front of this people, ardaydan hortooda. student iyo people waa isku mid, waa isku same meaning, waa isku macno. to disclosure inaan kugu fadeexadeeyo in front of this people, inaan kugu fadeexadeeyo ardaydan hortooda. who keep up, kuwaasoo ka warhaya. who keep up, kuwaasoo ka warhaya. who keep up, kuwaasoo ka warhaya that you are loony person, inaad tahay qof nacasa. that you are loony person, inaad tahay qof nacasa. and silly person, sidoo kale qof doqona. marka qaar waxa loo isticmaalaa loony person qof waalan, and silly person iyo qof doqonaba. marka wuxuu leeyahay that you are loony person, inaad tahay qof waalan, and silly person iyo qof doqonaba. waa yahay Jaamac ayaa hadalkii qaadan doonaa, waxaan odhan doonaa sidan. what this little damsel that abuse me. what this little damsel, waa maxay gabadhan yar that abuse me iyo caayisa. what this little damsel, waa maxay gashaantidan yar. waa maxay gabadhan yar. damsel waa gashaanti. what this little damsel, waa maxay gashaantidan yar amba gabadhan yar that abuse me iyo caayisa. Allah yaay bukle. Allah yaay. I am sorry, aad baan uga xumahay. I am sorry, waan ka xumahay. yani aad baan uga xumahay. it is a world, waa duni that has run out of sweetness, waa duni macaan ka dhamaaday. Allah yaay. I am sorry, aad baan uga xumahay. it's a world, waa duni
that has run out of sweetness waa duni macaan ku dhamaaday wuxuu ku leeyahay waa maxay inantan yar ama gabadhan yar aniga iyo caaysa allah hayaay waa duni macaan ku dhamaaday waxaynu maqalnaa inta badan inay dadku yiraahdaan waa duni macaan ku dhamaaday yani maanta iyadoo ingiriisiyaba ku arag wuxuu leeyahay what this little damsel waa maxay gashaantidan yar that abuse me iyo caaysa allah hayaay I am sorry waan ka xumahay I am sorry waan ka xumahay it's the wall waa duni that has run out of sweetness uu macaanku ka dhamaaday that has run out of sweetness uu macaanku ka dhamaaday hadalkiisii buu sii wataa waxaanu leeyahay sidan don't cocky hays cajabin because maxaa yeelay you are not secretary ma tihid sirdoon you are not secretary ma tihid sirdoon so sidaa daraadeed don't irritate me hayga cadhaysiin so sidaa daraadeed don't irritate me hayga cadhaysiin I am not the person mayhi qof I am not the person mayhi qofka I am not the person mayhi qofka you are wrong me adigu qaldayso mayhi qofka adigu qaldaysay yani aniga malaha cid kala jeedaa aniga maaha qofkaas buu leeyahay waayahay Jamiila hadalkii qaadan doonta waxaan odhan doontaa sidan don't dispute me hayla murmin I am not your mother ma hooyaday Allah don't dispute me hayla murmin I am not your mother ma hooyaday war practice kan waxba la isku lama hadhin waayahay don't dispute me hayla murmin I am not your mother ma hooyaday what's wrong with you maxaa ka qaldan what's wrong with you maxaa ka qaldan what's wrong with you maxaa ka qaldan aunt edu habar yaro maxaa ka qaldan yani aunt waxa la yiraahdaa edada sidoo kalena habadana waa la yiraahdaa marka waxa leedahay don't dispute me hayla murmin I am not your mother ma hooyaday what's wrong with you maxaa ka qaldan aunt edu habo maxaa ka qaldan habo waayahay are you waiting to sing you ma waxaad iga sugaysaa to sing you inaan ku ugu heeso askari sida ciyaalka for not to cry saanay ooyin yani caruurtu waa inay markay ooyaan waa kuwa loo heeso waa ta la yara kolkooliyo ma waxaad iga sugaysaa sidaas oo kale iga sugin bay leedahay waxa leedahay are you waiting ma waxaad iga sugaysaa to sing you inaan kugu heeso askari sida ciyaalka for not to cry saanay ooyin keep your mind maskaxdaada ku hay keep your mind maskaxdaada ku hay we are not at field of bumper ma joogno goob magranaysa kolkoolin xanaanay ma joogno we are not at field of bumper ma joogno goob kolkoolin but laakiin we are field waxaynu joognaa goob of education waxbarasho waxa ku leedahay kala saar maskaxdaadana ku hay keep your mind maskaxdaada ku hay we are not at field of bumper ma joogno goob xanaanayn goob kolkoolin but laakiin we are waxaynu joognaa field of education but laakiin we are field of education waxaynu joognaa goob waxbarasho jaamac ayaa hadalkii qaadan doona waxaanu odhan doonaa sidan indeed xaqiiqatan you are innocent girl waxaad tahay inan bilaa dambiya indeed xaqiiqatan you are innocent girl waxaad tahay inan bilaa dambiya that's why was sababta there is no surprise at my side was sababta aan anigu kula yaabanayn that's why was sababta there is no surprise aan anigu kula yaabanayn there is no surprise aan anigu kula yaabanayn at my side dhinacayga because maxaa yeelay you will not interference ma soo faragelin lahaydeen you will not interference ma soo faragelin lahaydeen if you had little knowledge haddii aad iga haysan lahayd cilmi yar haddii aad wax iga ogaan lahayd imaad soo farageliseen wuxuu ku leeyahay aniga kulama yaabani waxaan ku arkay inaan bilaa dambiya maxaa yeelay haddii aad garan lahayd amba waxoogaa cilmi iga hayn lahayd imaad soo farageliseen buu ku leeyahay waaye wuxuu ku leeyahay because maxaa yeelay you will not interference ma soo farageliseen if you had little knowledge with me haddaad wuxuun iga ogtahay ambaad cilmi iga haysato
ima soo farageliseen and I am seeing you waxaanan ku arkaa hadda and I am seeing you waxaanan ku arkaa groom girl inan nacasa inan doqona no imika I am seeing you waxaan ku arkaa groom girl inan doqona inan magaranaysa foolxun no imika hadda haddaba haddii aad halkan soo gaadhay subscribe iyo share iyo like taba waxaan kaa codsanayaa si dad badan u gaadho in magaranaysa aad like iyo share taba la dhacdo sidoo kale waxaan furnay maandhow tole qaybta TikTok haduu ku qori doona dhiirana English Learner Friends aad baad mahadsantihiin sida fiican noo daawateen thanks